cilmi baarisyo laga sameeyey Al-Azhar iyo jaamacadda Harvard ayaa muujinaya in ka qaybgalka joogtada ah ee maalinta salaada Jumcada ah ay gacan ka geysato caafimaadka maskaxda ee ruuxiga iyo dareenka jawi ay ku laran tahay shucuur farxad iyo rayrayn isku imashada iyo kulanka weyn ee dhacaya maalinta toddobaadka ka mid ah 2020 daraasad laga sameeyey jaamacadda Al-Azhar ayaa muujiyey in muslimiinta sida joogtada ah uga qaadata ama u imata salaada Jumcada ay sheegaan in heerka cadaadiskooga walwalka ay hoos u dhacdo iyo in ay dareemaan raaxo sii kordhaysa 2022 cilmi baarisyo laga sameeyey jaamacadda Harvard ayaa muujisay sidoo kale in caadooyinka bulshada ee isku yimadka sida salaada Jumcada ay door muhiima ka ciyaarto kor u qaadista caafimaadka maskaxda iyo adkaysiga waxa loo yaqaano hirdanka caqabadaha nolosha. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada kanaalkeena. Maanta waxaan si wada jira u baranaynaa muhiimadda maalinta Jumcada iyo khaas ahaan dhinacyada cilmi nafsiga ah ee la socda maalintan toddobaadka ugu qiimo badan. Run ahaantii ma ogtahay sababta maalinta Jumcadu loogu tixgeliyo maalinta ugu muhiimsan toddobaadka ee Islaamka? Haddaba Jumca of Soomaaliya oo loo yaqaano Jumca af Carabi waa maalin barakaysan oo run ahaantii muslimiinta daafaha dunidu ay run ahaantii ay dareemaan jawi iyo ka duwan maalmaha toddobaadka kale oo ka dhexaysa dhammaan muslimiinta oo dhan. Maalintan waxaa lagu xusaa ama waxaa la badiyaa saliga nebiga ayaa waa maalin fadli badan oo la badiyo. Waxay weliba sii leedahay barakooyin khaas oo waxaa ku jira saacado muhiima oo qofka muslimka mu'minka laga aqbalo ducadiisa. Waa maalin run ahaantii muhiim u ah waxa ruuxi loo yaqaano ee xoojinaysa xiriir ka dhexeeya qofka muslimka iyo Ilaahay. Waa maalin xoog u weyneynaysa. Maalintan oo keliya maaha maalin cibaado iyo sida oo kale waxaa laga helaa faa'iidooyin saameeyey nolosha nafsiyan qofka loo dhisayo iyo bulsho ahaaneyn muhiim u ah. Keliya maaha maalin barakaysan laakiin maalin cibaado iyo saa maahe oo laisku imaanay, laakiin waxay dhisaysaa qofka shakhsiyadiisa nafsiya noloshiisa ayay dhisaysaa oy horumar gelinaysaa iyo bulshada muhiimba u tahay. Mowduuceena maanta waxaan ka hadli doonaa muhiimadda Jumcada ee Islaamka, dhinacyada nafsiga ee maalintani ka dhigaya mid gaar ah oo ka duwan toddobaadka. Waxaan sida oo kale eegi doonaa waxyaabaha la yaab kale ee run ahaantii maalintan la xidhiidha. Qur'aanku qaabka uga hadlay maalintani, xadiisyadu qaabka ay u soo bandhigeen maalintan u macneeyeen iyo qaabka u sharaxeen culimmadii waaweyneed ee Islaamka. Haddaba haddaan galno oo bilowno mowduuceena, qolka ugu horeeya mowduuceena muhiimadda ruuxiga ah ee Jumcada maxay tahay? Dabcan Jumcadu waa waxaa loo tixgeliyaa maalin ugu wanaagsan ama maalinta ugu qiimo badan maxay ahayd maalmaha toddobaadka Islaamka. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam ayaa yidhi xadiis laga soo wariyey, maalinta ugu wanaagsan ee qorax soo baxdo waa maalinta Jumcada. Maalinta waxaa la abuuray nebigu, waa maalintii la abuuray Aadam, waana wuxuu ku daray waana maalintii la geliyay jannada, waxaana waa maalintii laga soo saarayna. Waa maalintani waxay leedahay micnayaal qoto dheer oo la xidhiidha abuurka iyo aadanaha la xidhiidha. Run ahaantii qodobka wuxuu tusayaa muhiimadda iyo qaabka ay u sharaxay xadiiska nebiga laga soo wariyey maalintan inay tahay maalin la xidhiidha abuurka aadanaha. Qodobkeena labaad, salaada Jumcadu waa waajib laga rabo ragga muslimiinta, taasoo bedelaysa salaadii duhurka ee maalintan. Salaadan
ووقت أي مؤمنين يسوي مادان سأودي سوحو مين سحب يدقيسية خطبة إنا يسي ودجيرة هو صادول التكدان رسول صلى الله عليه وسلم أيا لقصو وريي وحوري وقاب جماعة لو تكيو وحديث كورامي ويا أو وري أو صوري البخاري صوري هذي وري قف هذي وقف صوب ويصومردو كديمنا يمادو صلاة جماعة أو سي فوجينا أو سيرو فوجينا أو دقيستو خطبة dembigiisii u dhexeeyay jumcayaashaas iyo ka dambeeba waa la cafinaya weli marka waxay tusinaysaa waxay leedahay salaad waa maalin aad laga dhaafayo lagu cafinayo dambiyaasha adiga lagu cafinayo waa maalin qiimaha marka waxay qaabka uga hadlay qaabka ay u soo bandhigeen xadiisyadu ay u sheegeen qiimaha ay leedahay maalintan jimcadu qodobkeena saddexaad wuxuu ku sulgaan yahay barakooyinka gaarka ee jimcada laga helo waxay yihiin run ahaantii jimcadu sida oo kale waxaa loo yaqaanaa maalin barakooyin waa maalin barako gooniya leh rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi xadiis laga soo wariyey waxaa jira weli saacad maalinta jimcada ku jirta haddii muslimku uu duceysto oo allah haysiinayo ama allah ka aqbalayo xadiiska waxaa soo wariyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey waxayna tusinaysaa qodobka wuxuu si fiican noo tusinayaa saacadaha barakaysan ee maalinta jimcada ku jira waa waqti muslimiintu ay sugaan si ay uga faa'iidaystaan ay ducooyinkoodana ay soo bandhiga xaggeen soo bandhigaan si ilaah u aqbalo ducooyinkooda marka waxay tusaa maalin ku sar go-an barakooyin leh maalinta jimcadu inta haddaan isla fahanay qodobkeena ku xiga waxau ka hadlayaa waa qodob muhiimadda suurad qaabka uga hadla qur-aanku qaabka uga hadlay suuradda jimcada qaabka ugu sharaxay waxaa jirta muhiimadda suuradda aljumca waa suurad lagu magacaabo jumca waa jumco labageelada suuraddani oo macnaheedu tahayba jimco waxay runaantii iftiiminaysaa muhiimadda maalinta welibana kaas ahaan aayadda 9aad ee suuradda allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون runahaantii taasoo macnaheedu tahay kuwii rumaysan marka la eedaamo salaad jumcada welibana kuwa ka soo taga ganacsigiina oo ibaadada salaada taas milaha leeyahay ayaa naga fiican haddii aad og tihiin bule in kuntum taclamuun waxayna tusinaysaa qaabka qur-aanka uga hadlay muhiimadda ay leedahay oo waxay saayadani waxay muujinaysaa muhiimadda salaada jimcada waxayna dhiirigelinaysaa mu'miniinta inay siiyaan mudnaanta inay yimaadaan ay ka yimaadiin ganacsigooga arrimaha duniyada ka yimaadeen weli salaada yimaadiin marka waa maalin qaabka uga hadla qur-aan waa qaabka weye qodobkeena shanaad wuxuu saldhig ama ku salgo-an yahay qaabka uga hadlay culimmadii waaweyneed islaamka maalinta jimcadu culimmadii waaweyneyd ee islaamka sida imaam al-Ghazali imaam taymiya iyo imaam malik dhammaantood waxay isku raaceen waxay adkeeyeen muhiimadda jimcada al-Ghazali wuxuu qoray buugiisii caanka ahaa ee ahaa ihyaa al-mu'addiin ruuxaantii wuxuu yidhi jimcadu waa maalin ugu qaawamid waa maalin qaali badan toddobaadka howlaha aad wuxuu ninkani caalimkan wuxuu yidhi howlaha maalintan samayso wuxuu yidhi maanta howlaha qofka uu sameeyo yidhi waxay leeyihiin abaalmarin labo jibaan ku sheegnaa waa abaalmarin laba jibaana dhankiisa kale ibnu taymiya wuxuu sharaxay maalintan in salaada jimcada ay tahay inay muujinayso midnimo ereyga waa tayada marto midnimo waa yaan isku tag midnimo muujinaysa bulshada taa xogtay inay isku yimaadiin midnimo muslimiinta iyo waxaa loo yaqaano
hilow waxba ilaahay inuu hilownaado dadkii inuu hilow waa maalin waxay isku xidhaysaa waxay isku xidhaysaa waa dadka isku xidhaysaa ilaahayna isku xidhaysaa waa sharci waa wax loo yaqaano bulshadii kadib iyagoo midnimo ayay xagga ilaah ula jeegsanayaan marka waa ayaan hilow allah inuu hiloowayo qodobkeena lixaad wuxuu ka surgo-an yahay waxa ugu muhiimsan qodobkeena ugu muhiimsan buu ahaa aan ka soo hadalnay waxa weeye qaabka ama dhinacyadan cilmi nafsiga ay leedahay maalinta jimcadu aragtida nafsiga ah jimcadu waxay keentaa dareen cusub dadku isku yimiday iyo nadiifin dadkiioo jawi soo labistay soo celereeyey waa maalin jawi iyo reerreyn leh kadib salaada iyo dhegeysigu khudbadana waxay leeyihin wax kaloo ka fiican bay leeyihiin waxay qofka u ogolaanayaan muslimiinta in ay ka fikiraan toddobaadkoogii in ay dib isku noqdaan waxay soo sameeyeen kadib waxtaa kasi daranba inay xoog isku weydiiyaan isaga waa maxay xiriirka in ay xoojiyaan xiriirka u dhexeeya ilaahay iyo isaga u dhexeeya tani waxay sidoo kale bixinaysaa nasasho dhimi waayaan ciida weyn oo runaantii maalintani taasoo marka maanta si fiican u eegtin waxay ka fahmaysaa maalin ka duwan maalmaha kale tusaale ahaan daraasad laga sameeyey sanadkii 2020 jaamacadda weyne ku tala masar ayaa muujisay in muslimiinta sida joogtada u yimaada ee ka qayb gala maalinta jimcada ay sheegaan heerka haraajiska welwelka ay leeyihiin ay hoos u dhacdo weliba waxa ay kusii dareen inay dareemaan raaxo iyo farxad iyo qalbigoo farxad dhoola caddayn weyn oo qalbi ka imanaysa ayaa laga helaa bay ku sheegeen jaamacadda al-azhar oo sameysay waxa loo yaqaan baris runaantii jimcadu sida oo kale waa maalin bulshada lagu mideeyo waa midayn tawas erega iyo qaba hoos ka xariiq waa midayn taasoo runaantii abuuraysa jawi dareen iskaashi midnimo aragtida cilmi nafsiga ee ku jirta la xidhiidha bulshada wuxuu runaantii caawinayaa in ay waxay ka tegin kelinimo ka tegayaan waxay jamac isku imanayaan waxay iskugu iman midnimo isku imanayaan jawiga uu ka dabinaya qofku isbedelaya dadkii qalbi ahaan ba isbedelayaan runaantaasi oo bedelaysa siinaysa nolosha ayay si fiican qofka marka loo eego jawigiisa isku bedelayaa waa maadaama dad badan ay yimaadeen waxaa jirta weliba waxay dhalinaysaa waa maalin muslimiintu ay wakti la qaataan walaalnimo taageero iskaashi waa maalin dareem waa kow maxaa yidhi muslimiintu waxay wadaagayeen wakti walaalnimo iyo taageero iskaashiga cilmi baaris laga sameeyey jaamacadda harvard 2022 ayaa muujisay in waxa loo yaqaano tiirarka bulshada haya sida ku sheeg waa isku imadka ay ka ciyaaraan buuri ay door muhiima ka ciyaaraan waxaa loo yaqaano kor u qaadista caafimaadka maskaxda iyo adkeysiga inuu qofku helo waxaa loo yaqaano hirdanka iyo la dagaalanka caqabadaha nolosha la kulma inuu ku adkeysanaha qof adkeysi badan noqonaha ayay uu ka helaa qofka yimaada maalin kasta yimaada maalinta jimcada tusaalooyinkan waxay muujinayaan aan soo bandhignay saameynta qotada dheer in maalintan cilmi nafsiga ee maalinta jimcada la socda qofka dadka u leedahay bulshada iyo inay siisay faa'iidooyin ruuxiya waa ruux iyo taageero shucuur maskaxdaada oo si fiican u degto aad dareentid raaxo dareentid sacaado dareentid waxaa loo yaqaano toneer qodobkeen ugu dambeeya toddobaad waxa weyn jimcadu waa maalin farxad waa maalin ciid waa maalin loo tixgeliyo maalinmaha xafadda toddobaadka ee muslimiintu ay leeyihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi runtii maalinta jimcadu waa maalin farxad waa maalin ciida sidaas darteed waa maalin la farxo xadiidka waxaa soo wariyey waa ciid waayo oo yoom ciid wey waayaamaha waa ciid weliyo waxa weye waa maalin qiimaha leh muslimiintu waxay ka helayaan dhiirigelin in ay isku waxa loo yaqaano maalinta ay isku soo
ay soo labistaan jawiga soo bedeshaan qurux badan dadku nuuraya meesha nuuraysa nacam waxay jawigu zaaid u bedelmayaa si loo muujiyo farxad dadku isla wada qaataan waxaan soo gaarnay iminka gabagabadayna mawduuceena run ahaantii maalintan waa maalin ay ku leeyihiin waa waqti dib u cusboonida xiriir bulsho iyo xoojinta iskaashiga iyo inay maalintani waa maalin markaad eegtid waa maalin ka duwan maalmaha kale aa ka heli waqti laisla qaato cusbooninta ruuxiga cusbooninta xiriirka bulshada cusbooninta midnimada bulshada iyo waxaa loo yaqaano waa maal qur-aanku si fiican uga hadlay waa maalin ducada qofka laga aqbalo ay ku jiraan waa saacado fiican run ahaantii barnaamijkeena waxaan rajaynayaa in aad si fiican uga fahanteen faa'iidooyinka ay leedahay cilmi nafsiga iyo qur-aan qaabka uga hadlay culummadu uga hadleen insha allah saan kusoo gabagabaynaynaa waxaan leenahay saa iyo nabadgeliyo